maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa bilihii aynu soo dhaafnay waxa ay xaafadaha Daaroole ee magaalada Berbera ka bilaabeen dhul ay sheegeen in ay ugu tala galeen inay maraan biyaha magaalada dhexdeeda fadhiista xilliga roobabka taasi oo ay sheegeen inay biyo mareenadani ay badda ku dari doonaan biyaha roobabka fadhiista magaalada dhexdeeda waxaan mashruucaasi dhismihiisa gacanta ku haysay shirkadda dhismaha ee Tawfiiq taasoo dhismaha ugu badan ee dawladda hoose ee Berbera ay bixiso badiba dhista isla markaasina gacan saar buuxda la leh maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera mashruucani biyaha lagaga saarayay magaalada Berbera ayaa gabi ahaanba fashilmay taasi oo loo nisbaynayo waayo aragnimo la'aan waxaana arrintaasi cabasho ka muujiyay dadweynaha ka agdhow xaafadahaasi waxa magaalada biyaha ka saaraya ma jirto badii un baan lagu qoday badii baa soo baxday godadka imika nimankaas qodaya waxa ku jirta badii security mala dadka ka ilaaliya qof cidii doona ku dhacaysa xarraha ku dhacaya kanaaca ku dhalatay xaafadihii aagan ee u dhawaay drainage-ka oo dhan imika waxa hadana la leeyahay waxa la dhex marinaya hoteelkii magaalada ugu caansanaa Xeebsoon drainage-kan khadu haysta ma jirto waa lacag meel weeday waxaan leeyahay inta halkan lacagta lagu khasaarnaa badan lagu soo qodi lahaa meel kale galiya lacag badan 200 oo guri ama 100 guri oo loo dhisay dayarta halka dadku ku qaadayay roobab markay helaan meel ay galaan waaye jiingadaha burcasheekh iyo jaamala ay degan 100 guri oo loo dhisay ka qiimo badan lacagta gelinayso ku baxday aniga waa muwaadiniinta degan xaafadda Daaroole gaar ahaan halkan uu imika marayo waxaan loo bixiyay drainage ama hoggan muddo imika 3 bilood ayuu god kale qodnaa maanta ayaa imika nimanka ka shaqeeya oo niman orama waa nimankii 3 bilood ka hor qoday 3 bilood ka hor imika ciyaalkaygu godoon bay ku jireen islaan istiribada dadka waxay ka soo wareegaysaa koorne haddii ciyaalka cid maraysa ma jirin badee way habeen haday gaadhana wax laambada ama wax buluub ay ma jirto xayawaanka ku dhacay dadka waaweyn ku dhacay aniga iga deynta laga boodaya hadana kabinada qaar ku dhacayn marka inta dhibaato laga yimaado wuxuu uga hayaa wax ka dhalatay hal la yiraahdo taxi oo aan dhamaanay boos markii halka ka qaniinto halka ka qaniinta ku barreef kanacaan kala golahayn durayeen caafimaad darro badan oo imka ku soo siyaaday ereedan anagu doogidkana ma tareen way jirtaa arintaasi waayo habeenkii dadku ma arkayaan godka cid ilaalinaysa ma jirto waayo xaafadaha hortoodina oo loo qoday waayo dhowr qof way ku dhaceen dhowr qof baa xitaa ku jabay waayo birina way ka taagan yihiin garaayda dadku ku jabeen dadku xitaa waxyaalo badan bay gaadhaysan garaasa dabeeto wax loo qabto ma jirto iyadoo wax laga dhimay ma ahaane iyo god laga qoday ma ahaane ma garanaan meesha xabaashiga ma laga qoday anagu ma garanaan waxay tahay عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قال لي أفكر دنيارة قبل كساحل جدود كان وحي صوّدان يا وحي جيران بمجرته تدكيبا كل داعي إمك حافظة أنا كل اللي مجيلي كرا أو جود كيبا كوريا وعيال كيردم باكو باباي أنا وحنا لين سيدك دقة اللي نقول جارو أو على كعب طاحن مسوا عنا يعني إحنا الحين لو قال لي أفكر دنيارة حافظة برواقة حلا هم بس ما كان واحد وسمعت سير روبك علي كريان هي ويلو سميستين لهن دا عذر بنس marka cudur aan sidaan hay loo keenay lagu ma aragno wax la qabtay wax indhalada waxay u haystaan baan meesha dadkii ku jajabaan macalka gurana habeen iyo maalin islaan kan leexudaas ma lahayn lama iyaga masaarif lagu siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ah ee Royal magaalada Berbera